قال إيجوا أكتيدا وقف أنا ربنا إن هالكان مجلس عن كشابة وقف أنا ربنا برايفد إيه النقطة وأنا لماني جهاتن معناها من نرش كل أهانتا يا مرة كقر واحد أنتها نرش لما أنا قر من الآن وحن أمين سنة هي جعل كقول دردي سنة بدنتها منالي هدي لويرا هذا هل شيء دب هاللوجو عليو محوية حرير كارل دحيشين علي محوكوية هيسي منال ما واحد يقولها ليس أفكا مس قلبك كالها ضايع ما جعش هاي سؤال جاوبتي إن هاد مركلة كوعلي سمس التيات هوري وجاوبت أيات كل تاجنته تاسا يوم كنت تاجنه جعلكو وخرار أم بوا معان هب وصلوا كوسومرو وصح marka laga reebo family-gayga waxa hay sida la socotiin Manal baraha bulshada maalmihii ugu dambeysay aad bay u qabsatay hadalhaynteeduna way badan tahay qof walbana sidoo doono ay uga hadlay bal waxaad ka dareemi doontaa saameynta iyo culayska ay leedahay su'aalaha aan weydiino insha Allah su'aasha ugu horeyso aan siiyo afardaan orideeda adna haday qafiifin doonto iyo haday cuslayn doontaba بعد ما صنتها الأستاذ محمد سعيد سحاب الله يعزك ناكتي إذا مركي وريس كده جالس أوجي جعله له لا فكوسي نقائي وتشكل أوكي منال عدي يسوع دواء وسأش أجهرس أنكو يدينا وحدة منالي marka hore taariikh nololeed kaaga si kooban halka ku dhalatay meesha ku soo barbaartay iyo wixii la insha Allah sootur abay هذا وما تنتهي ولا شيء أدنى أنا مركو هرسا مجاعي قدبتا وصابرين عارف عبد الله وحانو كم قاعدين هاي منال بلداتشا وحان كدشتي دلك يمن عربتا حانو كسو برباري هالكا يا صوماليا بنتلان قروي بوساس ودحيين فانتين هذه ايوه تشيك هذا marka aan soo gaaray adiga 10 sano meelahaas waan ka soo tagay waxaan imaaday qurbaha meesha halkan joogo ilaa haddana halkan aan joogaa halkan wax ku bartay halkan aan wali ku noolahay waayahay dadku marka ay YouTube ka soo galayaan waxay baxsadaan naanaysi kala duwan adigu Manal beel daaje ayaa kugu qoran beel daajihi makii aan ogaa oo dhanka iyo yaan carabaabine misnaanees adigu aad la baxday waay may walaalkii ma aha naanees aan aniga la baxay waa naanees aniga lay bixiyay aan dhihi karaa oo leela jeclaaday qofkii la jeclaadana qof kale ma ahan abtigii ayaa igu cimaamaday naaneestaas aan halkan ka salaamayo waayahay waxaad ka gaashaamanaysaa su'aal soo socota inaan ku weydiiyo laakiin maadaama wakiil aan ka ahay bulshada su'aashu way dhacaysaa insha Allah su'aasha kale aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxay tahay Manaley maxay tahay sababta aad ugu soo biirtay YouTube-ka muxuu ahaa qorshe hore kuugu degsanaa inaad baraha bulshada soo galayso mise xilliyadii dambe ayaad ku fikirtay inaad ka mid noqoto dadka caanka ah ee Soomaalida walaalkay aad u mahadsan tahay ma ahan qorsho ii degsanay inaan ku soo biiro YouTube-ka laakiinse waxa ii degsanay in aan markasta noqdo qof ganacsato ah oo baraha bulshada social media dhinac kaga jirta inaan noqdo markasta qorshahaas uu ii degsanay laakiin inaan YouTuberad noqdo macnaha aan u soo jeesto YouTuber inaan YouTube ka shaqeysto ma ahan qorshe hore iigu dhalsanay gadaal ayuu igu dhashtay marka aan arkay dad badan oo igu dhaheen ولا شيء يوتيوب وقف عنتاي نو إمو ما فهمت dad badan oo aan YouTube-ka iiga horeeyay oo asxaab aan la ahay ay igu dhaliyeen saas darteed ayaan u imaadeen Manaley hadii aan kuwa adkeeyay iga raali ahaawe say ku ogaadeen dadkaas in adigu YouTube-ka ku fiican tahay maxaa yeelay dadkaas waxay yaqaanaan xirfadaha goonida aniga leeyahay oo loogu talagalay haweenka marka waxay yiraahdeen xirfada aad taqaanid ayaan anagana u baahanahay inaad bartid macnaha inaad wax noo kordhisid dhanka haweenka sidaas darteed waxaan ugu dhaheen YouTube waxay ugu dhaheen macnaha ay ugu taliyeen inaan ku soo biiro social media markaasna aan ayaka waxaan aqaano ay kororsadaan waka Manal maxaa leedahay su'aalaha liter TV waa libax ayaa tahay su'aasha xigtay afardaan orideeda aadnahay ما شاء الله Manal waxaan ku weydiinaa su'aashan waxay tahay adno waxa dadka u cadeynaysaa in caawa aanan casho ku siinin oo aan gacanteeda kuugu qarin oo aan afka ku gilgilin maxaa la codkaaga caawa
maya manaal ka maseersi maseer ha galo Miya? ha codka kor u qaad qatar iska dhig سيدنا وخادم يا سيدنا سيدنا qatar isaga dhigtaa markay maseerto نخرجتو عربدية قعنتا تمجد وسانا وهاي sheekadaas adaa lagu dhahaa baraha bulshada haddii aad timaado اوكي جعلك محد كآمن سنتهاي Aha. guushiisa iyo guuldaradiisa keebaa badan abaayo macaa hahey soo aada u mahadsantahay walaashay horta su-aashaas aada ay u kadisay jacaylka waxaa ka aaminsanahay aniga horta inay badan tahay horta jacaylka horay waxaa loo yiraahday horta heesaa waxay ahayd mataqaanaa jacaylku waa qaraar amba waa macaan hadba waa siduu kuu soo maro waa sax waa qofka bini aadanka jacaylku siduu usoo maro waaye iyo siduu ilaahay subxaanahu watacaala uu u qadaro laakiin aniga ahaan manaal ahaan waxaan aaminsanahay jacaylka guuldaradiisa inay badan tahay ay yar tahay guushiisa sababtana maxay tahay sababtaa waxay tahay dad dee ma sababi karo moogta aniga qof waxaa jiro macnaha waxaa loo fiirsadaa calafka maaragtay dadka ku guuleysta maxaa la dhahayay way yar yihiin jacaylka oo noqda dad is ixtiraama dad iska dambeeya dad isfahmo aniga waxay ila tahay fikrad ahaanteeda manaalka ahaan inay zaaid u yar tahay waayahay alxaq ayaan leenahay aadaankii ayaa nagu dul dhacay marka manaal tusaalaha aad soo qaadatay waxaad ula jeedaa mid nafsadaada aad kaga hadlayso mise bulshada guud ayaad kala jeedaa maya aniga mid nafsadeeda aan kaga hadlaayo ma ahan taas waa mid bulshada aan oga hadlaayo iyo sidai fikradeeda ay tahay waxaan aaminsanahay jacaylka guuldaradiisa inay markasta ay badan tahay guushiisana ay tahay hal dhif ah qof nasiib leh uu helo waayahay ilaahay waxaa ka rajeynaynaa qof walba inuu guusha jacaylku haleeshiyo insha allah waayahay waxaa jirta manaal in dadku qaarkii ay maalin walba su-aalo isweydiiyaan adiguna ay kugu weydiiyaan dhanka commentiga youtube-ka iyo instagram-ka waxaa dhacday in isaga iyo adiguba aad ka wada jawaabtaan su-aalahaasi oo si cad